الكتاب تبيانا لكل شيء وبشرى للمسلمين. الله تعالى وبركاته. إلهي بقى مهد إسكاله سبحانه وتعالى dhammaanteedba dhammaan rusushiisii iyo anbiyadiisiina naxariis iyo nabadgelyo ayaan ilaahay u weydiinaynaa subxaana wa tacaala, gaar ahaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. kusoo dhowaada barnaamijkii aakhiru zamaan talks. maanta bal waxaynu dul istaagi doonaa waxyaalaha kiristaanka ilaahay inooga tilmaamay markay noqoto dhinaca siyaasadda, welibana gaar ahaan aakhiru zamaanka. waxaan jecel lahay markaa aan dul istaagna intan barnaamijyada xiga in ay xidhiidh arrintani la yeelato, iyo gaar ahaan barnaamijka dajaal. sidoo kalena waxay xidhiidh la leedahay barnaamijyadii ka horreeyey aan idiin soo gudbinay. ilaahay markaa wuxuu ina leeyahay subxaana wa tacaala: acuudu billahi min ashaydaani alrajiim, bismi illaahi arraxmaani arraxiim. yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd. yahuudda iyo nasaarada isbaahaysi hala galina oo hala saaxiibina, sababtoo ah iyagaa isbaahaysi wada gala, iyagaana saaxiib ah. qofkii markaa idinka mida ee ku biirana fa innahu minhum, iyagu ka mid yahay wuu ilaahayna yidhi. waa suuratulmaa-ida aayadda 51. isla suuratulmaa-ida aayadda 82 ilaahay wuxuuna leeyahay markaa: latajidanna ashadda annaasa cadaawatan liladiina aamanuu. waxaad arki doontaa oo xaqiiq noqon doonta inaad arki doonto dadka ugu cadaawadda badan leh ee dadka ilaahay rumeeyey dhiba inay yihiin yuhuudda iyo kuwa ma garanaysay ilaahay u shariig yeelay. walatajidanna, waxaanad sidoo kale arki doontaa marka wakhtigu yimaado, aqrabahum mawaddatan liladiina aamanuu, kuwa maxabbada iyo gacaylka ugu dhow u muujin doona dadka ilaahay rumeeyey waxay noqon doonaan aladiina qaaluu innaa nasaara, kuwa yidhaahda annagu nasaaraan nahay, kuwaasay noqon doonaan. halkaasaan bal ku yar joogaynaa, aayadda dhammaystiri mayno. markaa waxay yar muuqataa labadii aayadood aynu sheegnay, midna ilaahay wuxuuna leeyahay subxaana wa tacaala kiristaanka kuwa yidhaahda annaga kiristaana ayaa jacayl iyo mawadda dadka islaamka a tusi doona ee mu'miniinta ah. halkana dadkii ilaahay rumeeyeyba waxaa laga mamnuucayaa yuhuudda iyo kuwa nasaaradiiba. marka labada aayadood ma iska hor imanayaan. waxaynu u baahan nahay inaynu darisno markaa xoogaa inaynu dul istaagno mid kasta. aayadda horaan ku noqonaynaayo 51. aayaddan waxaa inoo soo baxaysa, maadaama qur-aanka 1400 sano ka hor la soo dejiyey, dadka islaamkana la farayey inay yuhuudda iyo kiristaanka ayna saaxiibo iyo alliance isbahaysi ayna la gelin. ilaahay wuxuu ku daba daray bacduhum awliyaau bacd, iyagaa isbaahaysi samaysanaya, iyagaa saaxiibbaa oo isbaahaysi ku wada jira. markaa bacduhum awliyaai bacd markaan eegno historical facts, waxyaalaha waaqica ee taariikhda dhacay, ma jirtaa from the timekii qur-aanku la soo dejiyey. markaan ku noqonno yuhuudda iyo kiristaanku saaxiib ma haayaan, isbahaysima ka dhexeeyey. waxaa kuu soo baxaysa taariikhdaa markaad baadho
inay arrintaasi tahay maya. haddaba ilaahay muxuu yidhi iyagaa dee isbahays ka dhexeeya. taasaan markaa ka jawaabaynaa. markaa waxaa kuu soo baxaysa halkan kalena ilaahay markuu inagu leeyahay aqrabahum mawaddatan, kuwa ma garanaysaayey liladiina aamanuu, kuwa ugu dhow waxa weeye kuwa yidhi innaa nasaara, annagu nasaaraan nahay. markaa nasaarada halkan lagu sheegay iyo nasaaradan inalooga digay waa kala duwan yihiin. waa laba nasaare kala yihiin. laba nasaaro ayay kala yihiin, mid isku mida maa. waa inaan kala baranno markaa qolada halkan lagu sheegay iyo qolada halkan lagu sheegay maxay kala yihiin way su-aasheenna markaa maanta. aayaddii baa markaa dib aan ugu noqonaynaa. ilaahay uu ilahaa yahuudda iyo nasaarada saaxiibo iyo alliance, isbahaysi ha ka dhiganina, sababtoo ah iyagaa isbahaysi leh. waxaa kuu soo baxaysa maadaama waqtigii nebi maxamed isbahaysi ka dhexayn, aayaddani inay ka hadlaysay samano aakhirka iyo wakhtiga maanta aan ku jirno. aayaddani waxay ka hadlaysay wakhti soo socda inay soo bixi doonaan yuhuud qaar ka mida, maya aan idhaahdo yuhuud oo dhan maa, qaar ka mida yuhuudda iyo qaar ka mida nasaarada kiristaanku in ay samaysan doonaan isbahaysi oy noqon doonaan awliyaau bacduhum awliyaai bacd, qaar ma garanaysaa iyagu saaxiibbaa inay noqon doonaan. kuwaasaa inalooga digay. haddaba maadaamoo wakhtigii nebi maxamed ayna jirin kiristaan iyo yuhuud saaxiibba ahaa, oon odhan karnaba bal yuhuudda waagaa waxayba u dhoweyd carabta, waxaan maanta haynaa yuhuud iyo kiristaan saaxiiba ma haynaa? jawaabtu waxa weeye haa, maanta waxaan haynaa kiristaan iyo yuhuud saaxiiba ah oo samaystay waxaa la yidhaahdo ma garanaysaa netona ay u tahay their military wing. reer galbeedka kiristaanka, inta reer galbeedka ah iyo yuhuuddu waxay samaysteen xiriidh military ku dhaqaale. iyagaa ma garanaysaayey isbaahaysiyo iyo ma garanaysaayey lacago iyo ganacsi iyo dhaqan aad u adag maanta samaystay. kuwa inalooga digay markaa waa kuwa, maadaamoonanu taariikhda hore ku haynin waagii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yuhuud iyo kiristaan isbaahaysiyale ayna jirin. aayaddani samano aakhirkii ka hadlaysay dadka islaamkaa lala hadlayey. waxaa lala hadlayey gaar ahaan dadka islaamka hoggaamin doona. waxaa la lahaa war kuwiina islaamka hoggaamin doono ha ku beerina oo isbaahaysiyada ha ku beerina yuhuudda iyo kiristaanka iyagu saaxiibkaa. ilaahay baa ka jawaabay. markaa cidda halkan inalooga diga yuhuud oo dhanna maaha, kiristaan oo dhanna maaha, waa kuwa keliya iyagu saaxiibka ah. kuwii iyagu saaxiibkaana maanta waan garanaynaayo waa kuwa reer galbeedka iyo yuhuudda. intaasi aayaddaas weeye. ilaahay markaa aayaddii isla 82 wuxuu ku sheegay in kuwa ugu cadaawadda badanna dadka islaamkii ay yihiin yuhuudda waladiina ashrakuu iyo kuwa ilaahay u shirig yeelay. halkaa lecture horool idiin soo qaaday waladiina ashrakuu waxaan soo gelinay dowladda ma garanaysaa xag jirka ah ee hindiya iyo xidhiidhka yuhuudda ka dhexeeya, inay aayaddaasi inoo sii sheegtay samano aakhirka inuu soo baxayo xidhiidh hindida iyo ka dhexaynaya ma garanaysaa yuhuudda. aayaddaasina ay sheegayso. sidoo kale waxay sheegaysaa kiristaanka yuhuudda la saaxiibka ah ee halkan ku ma garanaysaa xusan waa kiristaan diintoodii ka tegay, oon diintoodii aaminsanayn. waa kiristaan ansixiyey ninku inuu ninka guursan karo, naagtu inay naagta guursan karto. waa kiristaan wadaadnimadii xitaa ka tegey oo gey iyo dumar wadaadda ka dhigtay. waa kiristaan maalin alliga maalintay doonaan waxay doonaan ku soo dara diintooda, say doonaanna u beddela. kiristaanka noocaasi waa kuwa haddana yidhi nebi ciise
markii hore waa ina ilaah u beel ahaayeen walciyaadu billaahi markii dambe waxay yidhaahdeen waaba ilaahayba trinity bay abuurteen kuwaas maxay soo galeen waladiina ashrakuu iyaguna way ku jiraan marka waxa ka soo hadhay nooc kaloo kristaan inuu jiro ilaahay noo sheegaya oo gruubka yahuudda la saaxiibka ah aan ku jirin sidoo kalena waladiina ashrakuugaana aan ku jirin kuwaasi waa kuwa uu yidhi dadka islaamkay u dhow yihiin kuwaasi markaa calaamadaha ku garanayno ilaahay noo sheegay wuxuu yidhi first waxay odhanayaan waa kuwa yidhaahda edhedhantigoogu kiristaannimaad ku garanaysaa kuma odhanayo ma garanaysaay anigu waxaan ahay georgian ama hebel ama waddan kuma sheeganaya ama caddaan wuxuu kuu sheeganayaa anigu waxaan ahay nin kristaan ku odhanayaa his first identity waa kiristaannimo waa kuwa yidhaahdaa annagu kristaan baanna sababtay saa u leeyihiin buu ilaahay sharaxo wuxuu yidhi daalika bianna minhum waxay saa u leeyihiin waxa weeye bianna minhum waxa ka mida khasiisiin weli waxay haystaan wadaadadoodu geyb maaha wadaadadoodu dumar maaha kamay tagin waxba kuma soo dardaraan waruhbaana welina waxay iska haystaan ma garanaysaa structurekii iyo maamulkii diimeed ee hore ay u haysteen oo monkskii bay leeyihiin wa innahum laa yastakbiruun maaha kuwo isweyneeya ninka fatikaanka haysta waxaad arkaysaa kuwa xitaa aaminsan diinta uu madaxa uga yahay gacanta salaanta caadigaa xitaa kama qaado isla weyne waxay ka qabaan fargal yar buu halkan kuwa taayo saasuu ugu dhiibaa fargalka yar buu sidaa waa dhukadaa hadday salaamaan wuu iska gundhiyaa muugta iska soo jiidaayo oo hadhow toolana sida waxyaalahan iminka coronaviruska waxayna looga warramayo markuu meelihiisa garana hadhow toolo uu isboofiyaa markaa kibir baa ku jira nimanka reer galbeedka iyo yuhuuddaba waxaa kuu soo baxaya dadka caalamka annaga ugu khatarsan dadka ugu fiican baan nahay dadka ma garanaysaa balaaya ka dhacday baan nahay kibir bay cirkaa marsan yihin markaa kiristaankii inaloo sheegay marnaba maaha kiristaankii inaloo sheegay markaa ee ilaahay halkanna ku sheegay ee marna suurat ruum lagu sheegay halkay joogaan taanu ka jawaabayna haddana waa taa سورة الروم إلهي وحكوليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم قلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع السنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصره من يشاء وهو عزيز رحيم وحكوليه ألف لام ميم قلبت الروم وحلقات كاذي رومانكي رومان كان لقات كاذي مركا واكوي إذا كانت كاتيرا وأيو وحوي beershiyaankii oo maanta ah iiraan iyo eastern romaankii oo ahaa turkiga meesha maanta turkigu tahay ka telin jiray oo xuduudna lahaabaa badanka isku dhici jiray markaa beershiyaankii baa ka adkaaday eastern romaankii oo byzantine qoladii loo yaqaanay markay ka adkaadeen quraysh baa faraxday oo tidhi ma garanaysaayey maadaamu beershiyaankii ilaahyada badan aaminsanaa hay guulaysteen annaguna nebi maxamedow maadaamuun ilaahyo badan aaminsannahay waan kaa guulaysanaynaa sida looga guulaystay qoladii kiristaanka ahayd ee sidaadoo kale ilaaha keliya aaminsanaa markaa ilaahay wuxuu yidhi markii laga adkaaday ruum fii adna al ard dhul markaa dhow oo dhulka carabta u soo dhow
baa lagaga adkaaday wahum laakiin ilaahay wuxuu yidhi min bacdi qalabihim guuldarrada soo gaadhay kadib sayaqlibuun way guulaysan doonaan marka adnal ard waxay tilmaamaysaa haddana inay kiristaanka soke ama eastern romankii inay ahaayeen ayna marnaba ahayn ta vaticanka ee dheer ee fog ee italy iyo wixii kasii dambeeya ah okay ilaahay markaa wuxuu sheegay fil bidcil siniin sanada gudahood buu yidhi sanad gudahood abubakar baa radiallahu canhu sharad ku dhigtay markay qurayshi tiri annaguna ma garanaysaa waa idinka guulaysanaynaa ay sidoo kale yidhaahdeen ma garanaysaa saaxiibkaa oo nebi maxamed bay u jeedeen maantana ma wuxuu keenay ma garanaysaa romaankii eastern romaankii la jebiyey baa guulaysanaya markaasuu yidhi haa way guulaysanayaan markaasuu sharad dhigtay sharadka markuu dhigtay 6 sano ku dhigtay nebi maxamed baa maqlay calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed baa u fasilay abubakar bidci siniin waxay ka dhigan tahay wuxuu ku yidhi abubakar oo bidci siniin waxa weeye kii qur-aanku ahaan jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi bidci siniin waxa weeye waa 6 sano ilaa 9 sano ee sharadka bedel 6 ilaa 9 ka dhig abubakar sharadkii waa weyneeyey 6 ilaa 9 buu ka dhigay sidii bayna u dhacday uu ilaahay qur-aanka ku sheegay markaa ilaahay wuxuu yidhi fii bidci siniin lilaahi alamr min qablu wa min bacd guusha hore iyo guusha dambaba ilaahay baa iskale wa yowma idin yafraxu lmu'minuun maalintaasay dadka islaamkuna ay farxi doonaan ee ilaahay rumeeyey ilaahay markaa wuxuu kusii dabadaray guusha ilaahay cidduu doono ayuu ugu gargaaraa gaal iyo islaam wuxuuna ilaahay kusii dabadaray in ballanta ilaahay uu galo uu qaado cid uu u qaado in uuna ka bixin laakiin dadka badankoogu sidaa uma ogsoono wax buu ilaahay yidhi marka ballantii nimankaa eastern romanka loo qaaday ayaa iyaduna waxay noqonaysaa min qabl waatay ku guulaysteen ee hore ee taariikhda lagu hayo dhacday wa min bacd iyo guushii dambe markaa la isweydiiyey mufasiriintii hore iyo culimo hore waxay markaa ku soo koobeen dagaaladii islaamku ku guulaystay ee jasiiradda carabta ka dhacay ee uxud iyo beder iyo ka mid ahaayeen dagaallo ka mida in ay tahay min bacdi ay tahay bay geliyeen halkaa saasay ku fasireen laakiin ilaahay ma jasiiradda carabtu ka hadlayey baa taala meesha maya ilaahay wuxuu ka hadlayey romaanka oo welibana wuxuu ka hadlayey kuwa soo dhow buu ka hadlayey fii adnal ard dhulka kuwa soo dhow buu ka hadlayey marka eastern romankii buu ka hadlayey eastern romankii buu ilaahay u ballan qaaday inay 2 guulood gaadhayso mid waa dhacday tii labaad markaa aaway wa min bacdi markaa weli ma dhicin way soo socotaa haddaba qoladii eastern romankii aynu ku ogeyn turkiga maxaa ku dhacay halkii maanta joogaan nimankiibaa haddaba waxaa qabsaday oo ku dhacay nimankii cotomaankii ee cusmaaniyiintii baa turkiga qabsaday nimankii ma garanaysaay kiristaanka halkaa joogayna ka awood batay oo aada ugu xoog sheegtay markay u xoog sheegteen halkii kiristaankii joogay way baxeen kiniisadahoogii iyo buugtoodii waa laalaabteen waxaa tegeen markaa dalka ruushka markaa kiniisadii ma garanaysaa eastern romaankii ee ku ooli jirtay turkiga gaar ahaan magaalada istanbul ee constantinople la odhan jiray waxay maanta ku taallaa magaalada moscow halkaasna waxaa looga arrimiyaa dhammaan ma garanaysaa eastern romankii kuwaas oo hadda madhab gaara leh madhabtoodana loo yaqaano the orthodox christiankii markaan fasilnana dhowr jeer waxaa kuu soo baxaysa fahum laa yastakbiruun kuwa isweyneeya maaha
diintooda aad baa ugu adag yihiin kuwa isu weyneeyana maaha waa ku sifoobeentaa waa kuwa mar kasta kiristaannimadu ay wax walba kala weyn tahay oo yidhaahdaa inna nasaara sida ilaahay inoo sheegay waa kuwo weli ma garanaysaa ruhbaaniyadoodii iyo qasiisiintiiba haysta kuwaasi waa kuwa uu ilaahay yidhi waa kuwa idiin soo dhowaan doona kuwaasi inay gaar ka yihiin kuwa hala saaxiibina layidhina waxa ay noo caddaynaysaa isbaahaysi iyo xidhiidh dheer oo yuhuudda la leeyihiin haba yaraatee ma jirto naytowna member ka mid ma aha kuwo weli ilaa maantadan oggolaadayna maaha ninkiiyo ninku inay isguursadaan naagtiiyo naagtu inay isguursadaan kuwo geey iyo ma garanaysaa ayay dumar u dhiibtay kiniisadahoogiina maaha kuwo kiniisadahoogii baabiyey oo iibiyeyna maaha halka kuwan kale kiniisadahoogii macdonald iyo ma garanaysaa fishan jibis ay ku iibiyaan kuwani waa kuwo weli ku dheggan diintoodii marka aayaddaasi mar walba waxay ka hadlaysay wakhtiga samano aakhirka in ay soo bixi doonaan qaar kiristaannimada ka tegey oo laakiin ma garanaysaa kiristaannimada lagu yaqaano oo haysan jiray laakiin ka tegey kuwaasi oo xidhiidh la samayn doona yuhuudda kuwa innaga inalooga digay waa kuwa markaa soo bixi doona ee xidhiidhka yuhuudda la leh kuwaa haddaba haddaan ka mid noqonno iyagaan ka mid nahay macal asaf waddamada maanta islaamka oo dhani waxay si toosa iyo si dadban ay saaxiib ula yihiin marka dhowr waddan oo farakutirisa laga reebo waddamadaa ilaahay uu yidhi hala heshiinina bay siiyeen ma garanaysaa saldhigyo ma garanaysaa military hadday noqoto sacuudiga qatar ma garanaysaa baxrayn kuwait jabuuti iyo ma garanaysaa soomaaliyaba kuwaas bay saaxiib la yihiin turkigu kuwaasuu ka mid yahay sacuudigu kuwaasuu ka mid yahay dhammaantood waddamadii islaamka bakistan halkaasaa lasoo wada galayaa ilaa iyo maashaa allah intii ilaahay ka reebay mooyaane kuwii la heshiiya markaa inala yidhi ee xitaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii asxaabta uu dirayey wuxuu u soo diray geeska africa wuxuu ku yidhi boqor caadilaa jooga oo ma garanaysaa kiristaane u tega waxay ahaayeen eastern ma garanaysaa orthodox christian bay ahaayeen dadkii markaa halkaa loogu yimiday ee soomaalidu ka mid ahayd geeska africa diintii markaa laga haystay ee ilaa imikadan qaar sii haystaan etoobiya ka midi orthodox christianity bay ahayd markaa kuwaasi mar walba waxaad iskuu soo baxaya orthodox christianku inayna ka mid ahayn kuwa la yidhi hala saaxiibina labada gruubba haddaba markay noqoto kuwaa la yidhi hala saaxiibina siyaasad ahaan hawla saaxiibina oo siyaasadahooga ha ka mid noqonina weeye macnaheedu ma aha markaad iminka dhegaysato qori intaad soo qaadatay inaad dadka isku qarxiso amba dadka adlayso no taasi ilaahay waa xaraameeyey haddii ayna jirin cid diinta islaamkaa ka wakiila inaad qori adi iska soo qaadqaadato oo ma garanaysaa dadka iska layso taasi ilaahay waa xaraameeyey waxaa ilaahay markaa inoo jideeyey in aynu qur-aanka kula jihaadno gaalada aqoonteenna inaynu sare u qaadno knowledgeka diinta aynuu leenahay iyo fahanka inaan sare u qaadno si aynu u fahanno waxyaalaha caalamka ka socda iyo si aynu u fahanno waxyaalaha caalamka inaloo ogol yahay iyo siyaasaddeenna halka inaynu marinno aynu rabno si aynu u fahanno marka waxaa kuu soo baxaya oon hore uga sheekeynay yaajuuj iyo maajuuj xulafooyinka yaajuuj iyo maajuuj caalamka inay dagaal ku qaadi doonaan na waan taabannay laakiin dagaalkan waan ka hadli doonnaa dagaalkaasi markuu markaa dhaco ballantii ilaahay qaaday ee wa min bacd ayaa soo bixi doonta ilaahay markaa ballantiisa wuxuu inoo sheegay inuuna marnaba ma garanaysaa ayay khilaafayn laakiin dadka badankiisu ayna fahansanayn qaar badan baa odhanaya amba yidhiba maxaa kiristaanka ilaahay ballan ugu qaaday jawaabtu waxa weeye ilaahay isagaa kaaga jawaabaya dhegayso
ilaahay guushiisa cidduu doono ayuu siiyaa. adigu ma go'aaminaysid, anu ma go'aaminayo. guusha ilaahay cidduu doono buu siiyaa. ilaahay markaa subxaana wa tacaala isagaa gartay in uu sida qur-aankiisa ku cad markaan dul istaagnay sidii orthodox christianka uu ugu hiiliyey inuu mar labaad ugu hiilin doono, sidii nebigeennu orthodox christianka uu u ammaanay ee u tega uu yidhi inuu mar kale ilaahay qur-aanka uu iyaga ugu ammaanay. markaa kiristaanku waa labadaa guruub bay kala yihiin. waxaynu ka sheekaynaynaa markaa goortii ay kala baxeen labada noqdeen. barnaamijka waxaa marti iigu noqon doona aqoon-yahan cabdiraxmaan siimoodi oo ka warsan doonaa intaynu barnaamij kan la mid a haddaba aynu ku kulmi doonno. waxaan idinka tegayaa fii amaan illah.